haweenka macallimiinta ah ee dhiga dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah waliba iyadoo la adeegsanayo qaabkii hore ee ay Soomaalidu Qur'aanka u baran jirtay ee loox waa mid ka mid ah dhaqamada caanka ay ku tahay magaalada Baraawe oo ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya way adag tahay in aad meel kale oo Soomaaliya ka soo hesho dugsiyo ay hogaamiyaan haween hase yeeshee Baraawe oo ah magaalo xeebeed dhacda koonfurta Soomaaliya waa ka caadi macallimad Caaisha waxay haysaa dugsigan ku dhawaad 30 sano hadda waxa ay bartaa Qur'aanka carruur ka badan 250 oo u badan agoon ama kuwa ka soo jeeda qoysas sabool ah wax lacagana kama qaado intooda badan waalidiintooda waa og yihiin waxa ma ka qaato wax mal isiyo anigana waxba ma ka weydiyo waa ogahay dad masaakiin kii oo adig istoor waxa qaw lawado kun gacanta iga saaran kii waxa qawina aniga ma wareerinay waxa keena ilmaha dhal u toola ilmaha kitaabu gal looha ilmaha ugu dhigaan gabdha la boqol iyo konton gabdho boqol wiilasha qiyaas leh qaar Qur'aan sanadkaas dhameen dhaafeen dugsiyaal loo furi qaarna waa ku jiraan qaar hadda iskoola jiraan idinka baa arki karto waa u jeedin khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wiilkeeda oo horay u bartay Qur'aanka ayaa ku saaciday in kasta uu xanuunsan yahay kadib markii uu dabaq ka soo dhacay taas oo caafimaadkiisa iyo noloshiisa ku yeelatay saameyn xooggan sidoo kale macallimad Faaduma Diini waxa ay gurigeeda ku bartaa Qur'aanka tira carruur ah macallimadan ayaa inoo sheegtay in muddo aad u dheer ay ku jirtay dhigidda ama barista Qur'aanka waxa ay soo saartay macallimiin fara badan oo rag iyo dumar leh qaarkoodna ay imaamiye ka yihiin masaajidda Baraawe awal magaalada idil haweenka ayaa dadka wax bari jiray magaalada dhexdeeda haweenka ayaa macallimiin ka ahaan jiray Baraawana dugsiyada iyaga ayaa dhigi jiray alxamdulillaah hadda labadaba waa laga helaa laakiin dad badan ayaa dugsiyo ka furtay xaqay macallimiintii horena waa la ilaaway wixii oo idilna kuwa hadda ayaa loo geynayaa macallimiinta hadda waxa la siiyaa waxay badar ku gataan iyo waxay dhar ku toshaan oo kaliya carruurta waxa laga wadaa dugsiyadii hore ee haweenku dhigi jireen waxaana la geeyaa kuwa hadda la furay aaway marka xaqay macallimiintii hore ee cunugaasi meel soo gaarsiiyay kuwa qaar marka ay gaadhaan qadsami calla ama yaasiin waa la wadaa waxaana la geeyaa meelo quraac iyo qado laga siinayo dhaqankaasina hadda ayuu soo baxay annaga dadkii wax soo barnay 40 sano ka badan waxay noqdeen imaamiyo masaajidada ku jira kuwana dibadda ayay aadeen kuwa dibadda aaday wayna anfacaan qaarkoodna waa inaasiyeen macallimad Faadima waxa ay noo sheegtay in haweenka Baraawe Qur'aan barista caan ay ku yihiin oo aysan ahayn wax naadir ah hase yeeshee waxa waayihii dambe aad ugu sii yaraanayay magaalada Baraawe dugsiyada ay haweenku dhigaan taasi oo loo aaneynaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaaladii ku soo laalaabtay magaalada sanooyinkii tagay iyo in inta badan dadkii asal ahaan deganaa Baraawe ay ka qaxeen una hayaameen dalka dibadiisa